Soomaaliya waxay safka hore kaga jirtaa dalalka ugu ciidan wanaagsan Afrika. burburkii iyo qaranjabkii ku dhacay dalkeena 1990kii kadib ciidanka xoogga dalka Soomaaliya mar kale ayuu soo noqday isagoo leh wadaniyad tababar wanaagsan tayo sareysa anshax iyo asluub wanaag dal dad iyo diin jacayl intaba bilowgii sanadii 2017 waxa dhalatay dawladda uu majaraha u hayo madaxweyne Farmaajo ahna taliyaha ciidamada isla sanadkii uu horeeyay wuxuu go'aansaday dib u dhiska ciidamada gaar ahaan xoogga dalka saad ogtihiin sanad iyo bar kadib yaa meeshaan imid oo aan joogay isbuucii aan joogay si aan u baaro waxyaabaha naga hadlaysan maxaa yeelay askartii aan mushaaraadka siinayna ma gaarayso tayadii ciidankii ma fiicna isku xirnaanshihii saraakiishii iyo dablaydiina ma fiicna waxaan gartay marka inaan meeshaan u soo dego oo aan baaro cilladda meeshay ka jirto cilladda waxaan ogaaday in uusan jirinba hal gal file oo ciidanka leeyahay in ciidankaas hadduu tago meel laga raadiyo aan la aqoonin inta isla joogto keliya istaqaana meeshaas way meesha uu ka bilowday in aan samayno biometric iyo diiwaangelin meeshaan ka bilaabay meeshaas oo uu ka dhabeeyay meel wanaagsanna maraysa waxa la qaaday tallaabooyin lagu kala hufayo ciidamada iyo musuqmaasuqii ka dhex jiray waddadii guusha dhismaha ciidanka ayaa cagta la saaray aqoon-yahanno amni iyo saraakiil ciidan ayaa gacanta loo geliyey hawsha dib u habaynta ciidanka waxaa la qabtay shaqo aad u adkayd balse maanta la hayo miraheeda wanaagsan ee ka dhashay kadib dhammaystirka qorshaha dib u habaynta oo lagu bilaabay markii u horraysay tirakoobka ciidanka qaybta maamulka lacagta mushahar bixinta saadka ciidanka iyo ilaalinta xogtooda askari kasta oo ka mid ah ciidamada waxaa loo sameeyey xisaab bangi oo u gaara si loo xaqiijiyo inuu xuquuqdiisa si toosa u helo kadibna uu ugu diyaar noqdo fulinta waajibaadka qarankiisa ka saaran waxaa lagu guulaystay in la cirib tiro musuqii iyo xuquuqdii ciidamada ee la lunsan jiray nidaamka dib u habaynta ciidamada wuxuu markii ugu horraysay si toosa u aqoonsanayaa magaca askariga darajadiisa da'diisa mushaharkiisa xaaladda nooca dhiiggiisa halka uu ka tirsan yahay iyo macluumaadyo kale oo muhiima waxaa la helay ciidan hawlgeli kara oo aan dib uga soo noqon hawlaha qaranka lehna niyad wanaagsan oo ay cadowga uga xoreeyaan dadka deegaannadii ay gacanta ku hayeen ciidanka xoogga Soomaaliyeed waxay dib ula soo noqdeen xuduuddoodii sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee wanaaggaas ku sifoobay in la helo waxa lagu gaaray dadaal wada jira isku duubni iyo hoggaaminta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa noo soo ifbaxay xaqiiqatan inuu moralkiina fiican yahay inaad weli u heelan tihiin aad diyaar u tihiin inaad dalkiina difaacdaan oo weliba hadda si fiican idinkugu carbiyey oo tababarkiinna iyo macallimiintiina halkan aan uga jeedno runtii aan u aragno inaad hadda diyaar u tihiin inaad howlgallo ka qayb gashaan oo aad dalkiina u dhimataan dhiiggiina u daadisaan